weli ma kugu dhacday adoo haysto sawir oo aad u qurxoon oo aad damacday inaad soo geliso Facebook ama Instagram-ka markii aad soo gelisayna sawirkaaga qayb ka mid ah oo maqan yahay mise quality-giisa oo isbedelay maanta waxaan rabaa inaan soo gudbiyo cashar aad iyo aad muhiim u ah oo ku saabsan sida ugu habboon uguna fiican aad social media export ugu samayn lahayd sawirkaaga asagoo quality-giisa oo waxba iska bedelin iyo quruxdiisaba magacaygu waa Cabdiraxmaan ku soo dhawaada channelka meeshan ayaan imaaday oo jawigeeda aad u degan oo qurux badan waxaan ku qaadaynaa dhowr sawir oo aan maaragtay ku samayn doono edit hadhow dambe waa meel jawigeeda qurxan oo degan kaamirada aan isticmaalayna waa Sony A7 III lensigeedana waa 16-35 waxaana maaragtay aan isticmaalaynaa 24 mm settinggeedana waa kana shutter speedka 1/8 aperture-kana f8 waaye ISO-gana 200 ayaan ka dhigay waan dhameeyay sawir qaadidii waxaan rajaynayaa inay sawiro qurxoon noqdaan waxaana maaragtay ka samaynaynaa edit iyo export qaybta dambe videogana la soo dhowrka sawir aan soo qaadnay hadda waxaan kala baxayaa hal sawir halkan sawir waxaan ku sameynayaa edit yar kadibna waxaan sameynaynaa oo muhiimadeenu ay ahayd exportiga qaybta oo ugu muhiimsaneed oo exportiga ahayd oo dhinaca social media Facebooka iyo Instagram-ka casharkan waxaan adeegsanaynaa Adobe Lightroom iyo Adobe Photoshop video kale iyo cashar kale oo adeegsanayo telefoonkaaga oo wax program aadan adeegsanaynin ayaan idin soo gudbin doonaa laakiin inta aanan sameynin ka hor xogo yar oo modification yar aan sameynaynaa ama edit yar aan sameynaynaa oo sawirada ah muhiimadda oo kaliya waxa waaye markaad hesho sawirkaaga oo sawirka ugu habboon oo aad rabto inaad social media soo geliso kaliya waxaad u baahan tahay steebyadan aan kuu sheegay inaad raacdo waxaana soo socdo casharo badan oo ku saabsan qurxinta sawirada iyo videoyada iyo casharo ku saabsan dhinaca teknolojiyadda haddii intaas aad xiisayso oo hore aad nagu cusub tahay fadlan la wadaag subscribe saar asxaabtana la wadaag adigoo like saarayo oo aad ku mahadsan tahay mar walbaba haddii aadna la joogtayna mar walbaba waad og tahay casharadan oo kale inaan sameyno ku soo dhawaab channelka waxaan ku hormaray Lightroom waxaan toos u tagayaa highlights-ka waxaan gadaal keenaa ilaa 100% shadows-kana kor ayaan u qaadayaa xoogaa yar whites-kana xoogaa yar kor u qaadayaa blacks-na dhinaca madowgana wax yar hoos u dhigayaa tone curves-kan ayaan toos u tagayaa S curve wax u eg ayaan sameynayaa oo S u eg curve-ga waxaan toos u tagayaa remove chromatic iyo enable profile correction kadibna color-ka ayaan tagayaa green-ka dhan hoos ayaan keenayaa 100% waaye wax green oo indhaha ay qabtaan ma rabo oo dhinaca red-kana kor ayaan u qaadayaa wax yariisa si ay macna meelaha oo guduudan ay u soo muuqdaan oo baaskiilka blue aquana 100% minus aan ka dhigayaa
buluuga wax yariisaan hoos u dhigaa si oo samada cirka detailkeeda ay ugu fiicnaato. Huyu waan tagayaa magenta all way boqolkiiba boqol oo minus iyo purple oo boqolkiiba boqol minus wax yariis oo red ayaan ku darayaa. kadibna waxaan toos tagayaa clarity-ga waxaan keenayaa minus 45 ilaa minus 36 meelahaas waxa. kadibna waxaan tagayaa texture ayaan tagayaa minus 29 waxaan exposure-ka ayaan kor u qaadaynaa. kadib maaragtay sawirka ayaan fiirinayaa sidoo ila ekaado wax yar zoom ayaan soo sameynayaa. kadibna zoom markaan dhaho waan fiirinayaa waxyaabaha oo haday saxitaan u baahan yihiin. waxay la muuqataa wax yariis in texture-ka aan ku daraayo ama clarity-ga si oo sawirka uu xoogo yar oo clear ugu noqdo. marka fiiriso sawirka oo kula fiicnaado oo aad iyo aad u qiimeyso oo dhinac walba aad ka fiiriso waxa arkaysaa hadda baaskiilka dhinacan inuu xoogo cagaar iyo buluug u noqdo inaan saxno waaye. marka saxaysidna waxaan qalad ku sameynay dhinacan oo saturationka ayaan boqolkiiba boqol greenka iyo aqua keenay. marka waan ka bixinaynaa waan ka dhimaynaa. markii oo labadaas aan ka bixino wixii dhan detailka oo soo noqonaya sidii loogu talagalay oo soo noqonaya. dhinac walba waa ka controleysaa wixii markay kula fiicnaadaan oo wax walba ay kula fiicnaadaan oo sawirka dhan uu kula fiicnaado zoom aad dhahdo dhinac walba aad ka eegto. waxaan u raraynaa sawirkan dhinaca photoshop-kan u raraynaa edit in photoshop aan leenahay photo edit in photoshop. kabacdina photoshop-ka waa kan oo soo furmay toos waxaan u tagaynaa marka photoshop. wax badan ma ku sameynayno dhinaca photoshop-ka kaliya waxaan sameynaynaa dhulka ayaan nadiifinaynaa. meelaha wasaqda ayaan wasaqda ka qaadaynaa. meelaha nala muuqado inay wasaq tahay ayaan wasaqda ka hagaajinaynaa. kabacdina waxaan aadaynaa dhinaca oo sawirka meelaha oo ka yahay madow oo ka yahay inaan aftiin ka dhigno. meelaha aftiinka oo ka yahayna aan madow ka dhigno. muhiimaddu waxa waaye sawirka inaad crop 4x5 aad ka dhigto. kadib marka 4x5 aad ka dhigto oo aad samayso waxaan ku daraynaa inaan sky-ga ama cirka aan bedelno oo cir oo maaragtay xoogo u eg dhinaca sawirkeenu aan ka dhigno. waxaan soo gaarnay hadda qaybtii ugu dambeysay oo ugu muhiimsaneyd oo video casharkan uu ku saabsanaa oo ah export settings-ka oo dhinaca social media-ha Instagram-ka ama Facebook-ka. qaybta oo ugu muhiimsan waxa waa horta sawirka inaad marka hore crop aad ka dhigto oo 4x5 aad ka soo dhigto. marka aad diyaariso waxaad tagaysaa file markaad dhahdo kadib waxaad dhahaysaa export save for web and legacy. meeshaasaa ugu muhiimsan inaad tagto. intaan markaa soo samayso kadib waxaa fiirinaysaa JPEG ayaad ka dooranaysaa. maximum ayaad dooranaysaa meeshaasi. kadibna labadaas optimized iyo embed color profile-na waa check ayaad saaraysaa. use document profile ayaa saaraysaa ayaad dooranaysaa. waxaad markaa fiiriso meeshaasna waxaad dooranaysaa bcubic sharper ayaad dooranaysaa. marka intaas doorato hadda file-kan xajmigiis waa weyn yahay oo intaas waaye oo maaragtay 8.5 megabyte waaye. hadhow marka inaan sawirkan aan yarayno waxaa muhiim ah marka inaad imaado qaybtan oo ah qaybta oo ugu muhiimsan image size-ka. meeshaas waxaad gelinaysaa lambarkan oo ugu muhiimsan inaad geliso. hadda lambarkan ka tagto sawirkaaga wuu xumaanaya waa 2000 iyo 2500. wa'da meesha ah waa width, height-kana waa height, h-kana waa height-ka. marka meeshaas aad gelinaysaa 2500 kadibna save ayaad leedahay. intaas markaa save soo dhahdo caadi marka meel alaal meesha adiga aad rabto ayaad ku save garanaysaa oo adiga aad xasuusan karto. magaca daarto bedelaysaa, magaca aragtida ku qoran kartaa, wax muhiim ma ahan. hadda already sawirka waan save garaynay. kadibna waxaan tagaynaa airdrop haddaa isticmaalayso Mac. waxaan tagaynaa sawirkii meeshii aan ku save garaynay ayaan aadaynaa aan soo qaadanaynaa. markaan sawirkii soo qaadno waxaan drag and drop ku siinaynaa meeshaasi oo iPhone-kayga. hadda mobileka ayuu jiraa. marka kadibna waxaad ku share garaynaysaa meesha allaal meelaad jeceshahay social media-ha oo Instagram-ka ama Facebook-ka. intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa casharkii maanta ku saabsanaa export settings-ka dhinaca social media-ha sida Facebook iyo Instagram-ka.
sawirkaana waxaan ku soo share garayn doonaa dhinaca Instagram-ka oo ciwaankiisa aad hoos ku aragto. haddii aad ka faa'iidaysatay waxaan ka rajeynayaa inaad like saarto. YouTube-ka wuxuu gaarsiinayaa qof adigoo kala ah oo u baahan inuu ka faa'iidaysto casharada noocan oo kala ah. haddii aadan weli nagu soo biirin, subscribe noo saar channel-ka oo ku soo biir si casharada noocan oo kale aysan kuu dhaafin. inta aan ku kulmi doono videoga kale waxaan idin leeyahay maalinta ha idin wacnaato. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.